بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسنا قيارتها ودينا قدا ونايسا ميل كستو أد جوكتان halkani waa Soomaali Weyn TV oo toddobaadkii marad kala socotaan magaalada Yatapori nawaaxigeeda adinkoo inaga daawan karo obna kanaal inta kale caalamkana waxay si toos ah inooga daawan karaan barteena internetka ciwaanka iyagu oo yahay www.somaliweyn.com aqyaartaha wada inaga daawanaysa barnaamijyadeena caawa waxa ugu horeyn doona aayadaha Quraanka Kariimka ah waxa inoo raaci doona darsi diini ah oo aalaad bal socotaan aayadaha Quraanka Kariimka kadib sidoo kale toddobaadkan waxaan idin soo deyn doonaa barnaamijkii ciyaaraha oo inoo soo tabin doona wariyaheenna Axmed Kaafi sidoo kale waxaad daawan doontaan على مساركي لو سميي عاشو عمر جزدير oo dadka raayay boori ay la jecleysteen inay ka mid noqoto boqolkiiba 30 xildhibaanada gabdhaha loo ogolaaday ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay soo socoto xaflad loo sameeyay caasho Geesdiir lagu calay masaaraya waa daawan doontaan sidoo kale kaalmihii suugaanta meesha kama maqno Soomaali Weyn TV barnaamijkii cunno karinta kii caruurta waa daawan doontaan macana wanaagsan meel kasto aad joogtaan haatan aayadaha Quraanka Kariimka بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ka oo toddobaadkiiba marka daawataan TV-ga Soomaali Weyn oo aad kala socotaan obna kanaalan bartaynta magaalada Yatapori waxaad inagala socon kartaan daawadayaasha dunida daafaheeda ku kala sugan iyo wadanka Sweden inta ka baxsan magaalada Gothenburg barta internetka aynu ku leenahay www.somaliweyn.com barnaamijka waxyaabaha toddobaadkan ku maqli doontaan dhageystayaal waxaa kamid ah taariikh kooban oo koobka qaramada qaaradda Yurub ee ka soconaya wadamada Ukraine iyo wadanka Poland kulamada la ciyaaray toddobaadkan sidoo kale waad ku maqli doontaan iyo suuqa kala iibsiga ee ciyaaraha haddaba haddaan u gudagalna barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha tartanka qaramada qaaradda Yurub sanadkan waxa uu ka furmay 8 bishan magaalada Warsaw ee wadanka Poland waxaana kulankii koobaad ishardiyay wadanka martigelinaya ee Poland iyo wadanka Greece kulankaasi oo la ismari waayay kuna soo dhamaaday 1-1 labada wadan waxay kala gurteen amaba kala qaateen min hal dhibcood waxaana lagu wadaa in lagu soo afjaro magaalada Kiev ee garoonkeeda 70,000 ee qof qaada kowda bisha July halkaasi oo lagu caleemo saari doono horyaalka qaaradda Yurub haddaba haddii aanu gadaal u jaleecno taariikhda kooban ee koobkan qaramada qaaradda Yurub koobkan ayaa soo bilowday xilli ku beegneed kolkii Soomaaliya ay qaadatay xornimada waa 1960kii ayadoona lagu martigeliyay wadanka Faransiiska koobkan ayaa isbedelo kala duwan iyo qaabab kala duwanba ku soo bilowday waxaana fikirkiisa amaba maskaxdii ka dambeysay ahaa nin la oran jiray Henry Dalluna ayadoona xilligaasi loogu yeeri jiray European Champions xilliyadii hore ee koobkan ayaa loo ciyaari jiray qaab guri ka guri ah amaba wadan walba wadanka kale gurigiisa ku soo ciyaari doono afarta kooxood ee ugu dambeysana ayaa imaan jiray wadanka sanadkaasi martigelinaya koobka
afartii wadan ee nasiibka u yeelata ayaa kala ahay martigeliyihii sanadii 1960kii waa Faransiiska, Yugoslavia, wadankii la oran jiray Soviet Union iyo Czechoslovakia oo hadda u kala jabtay wadamada Czech Republic iyo Slovakia. waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd isugu soo baxay wadankii martigelinayay waa Faransiiska iyo Soviet Union, laakiin hadda Russia loo yaqaan oo ku soo dhamaatay. ciyaartii waxay ku soo dhamaatay 2-1 ee guushu ku raacday wadankii Soviet Union ka oo koobkii loo hayday sanadkaasi. sanadii 1964 waxa martigeliyay wadanka Spain. haddii aad ku ogeeyay Spain inay ahayd horyaalkii 2008 haddana ku darso Spain ma ahayn markii ugu horeeyay ee koobka ay qaada, laakiin waxa ugu horeysay sanadii 1964 koobkii lagu martigeliyay dalkeeda hooyo. 1968 waxaa lagu qabtay wadanka Talyaaniga, waxayna halkoodii ka sii wadeen cashiradii ay ka barteen wadankii Spain iyo ciyaartii sanad koobkii ka horeeyay koobkaasi waa Spain kolkii gurigeeda lagu qabtay hore u qaadatay Talyaaniguna koobkii hore ayuu sii qaatay. sanadii 1972 waxaa lagu qabtay wadanka Belgium, waxaana hore u sii qaatay koobkaasi wadankii xilligaasi la oran jiray Jarmalka galbeed, waxayna ciyaartii 3-0 afka ciida ugu dareen Soviet Union, waxayna kamid ahaayeen ciyaartooyda Jarmalka waxaana kamid ahaa ciyaartooyda Jarmalka kuwii caawiyay ciyaaryahan la oran jiray Gerd Müller iyo Herbert Wimmer. sanadii 1976 waxaa lagu martigeliyay wadankii la oran jiray Yugoslavia, waxaana ku guuleystay wadankii la oran jiray Czechoslovakia oo haatan asaga laftirkiisa u kala jabay Czech Republic iyo wadanka Yugoslavia. ciyaartii ugu horeeyay ee koobka qaramada Yurub, taas oo ahayd ciyaartii ugu horeeyay ee koobka qaramada Yurub finalkiisa lagu kala baxo rigorooyin, ayaa Czechoslovakia ciyaarta goor hore ku hogaamisay 2-0, laakiin ku soo ilaatay 2-2 markii laga daba keenay, walow gool ku laatay koobkii ku qaateen wadanka Yugoslavia. 1980 waxaa markii ugu horeeyay markeedii labaad gurigeeda lagu qabtay Talyaaniga, waleeso ay sacalfan koobka sidii markii horeeta, laakiin markii labaad gurigeeda koobka ku qaaday wadankii la oran jiray Jarmalkii galbeed. 1984 waxaa lagu qabtay markii ugu horeysay wadanka France oo kaashanaya ciida iyo taageerayaasha ayaa France koobkeedii ugu horeysay la hoyaaday, waxaana wacdara iyo kaalin lama ilaabana ka dhigay gudoomiyaha xiriirka UEFA ee haatan ninka la yiraahdo Michel Platini. sanadii 1988 waxaa lagu qabtay wadankii la oran jiray Jarmalkii galbeed, laakiin aan muujin dadaalkii hore looga bartay, waxaana koobkii hore u qaatay wadanka Netherlands. 1992 ayaa markii ugu horeysay waxaa la keenay wadankan Sweden, iyadoo ay martigelisay ciyaarihii 1992 Sweden fursadaasi kama aysan faa'iideysan, waxaana ka faa'iideystay wadanka ay dariska yihiin ee Denmark koobkiina hore u qaatay. sanadii 1996 waxaa martigeliyay wadanka England Ingiriiska oo la taageeranayay jabkii ay ka qaadeen u soo gudbid la'aantii ciyaarihii adduunka ee sanadii 1994 lagu qabtay wadanka Mareykanka ayaa wacdaro iyo dardar la soo baxay, mar kalena magacooda boorka dib uga jafay, walow kulankoodii ugu horeeyay barbardhac 1-1 ah ay ku kala baxeen. haddana waxa ay kaarka hore u sii marsadeen Scotland ayagoo 4-1 afka ciida ugu daray. horyaalkii 1988 waa Netherlands ayaa haddana hore uga sii badiyeen, sidaasi ayayna quarter finalka amaba wareega 4-4 ugu soo gudbeen, waxa ayna shabis yiraahdeen ka hor intaysan finalka u sii gudbi aysan imaanin Germany, laakiin koobkii waxaa la hooday wadanka Germany. sanadii 2000 ayaa waxaa martigeliyay wadanka Holland iyo Belgium oo iskaashanaya France oo 2 sano ka hor ku soo gooleysatay sanad koobkii adduunka ee lagu qabtay gurigeeda, ayaa mar kale muujiyay awoodeeda ayada oo cadeysan in ay xitaa ku guuleysan karto koob aan gurigeeda lagu qaban. ciyaarteeda awooda badanna aysan ahayn oo qura taageerayaasha faraha badan ee wadanka France uu ku haystay xilligaasi gurigeeda, waxayna kulankii kama dambaysta ahay isku haleeleen Italy iyadoo ay guushii ku raacday gool uu dhaliyay David Trezeguet.
sanadii 2004 iraahde waxaa lagu martigeliyay wadanka Boortaqiiska oo markeedii ugu horeeyay lagu qabtay koobka ciideeda iyadoo geed gaaban iyo geed dheerba u fuushay sidii koobka uusan u soo dhaafi lahayn ciideeda laakiin riyadaasi waxaa beeniyay wadanka Greega oo ciyaartii finalka ee 1-0 ee guushii ku raacday wadanka Greega sanadkan ka horeeyay waa 2008 ayaa waxaa lagu martigeliyay wadamada Austria iyo Switzerland oo si wada jira u martigelinaya koobkii 2008 laakiin midkoodna kuma uu soo guuleysa waxaana kala dhaxbaxay wadanka Spain 2 sano kadibna ku darsatay koobkii adduunka ee lagu qabtay wadanka Koonfur Afrika ciyaartii finalka ahayd ay isugu soo baxeen wadamada Germany iyo Spain ayaa ku soo gabagabooday hal goolka oo uu dhaliyay ninka haatan abaarta gool la'aantu ay la degtay waa Torres haddaba sanadkan waxaynu doornaa amaba aynu sugnaa waa wadanka loo boqri doono horyaalnimada qaaradda Yurub haddaba haddii aynu eegno kulamada toddobaadkan la ciyaaray kuwada ugu xiiso badan aynu ka soo qaadano wadanka aynu ku noolnahay waa Sweden oo tartanka daaqada laga tuuray ka gadaal markii kulankoodii rajadoodii ay biyaha ku dareen wadanka Ingiriiska ciyaar ku soo idlaatay 2-3 ciyaaryahan Welbeck ayaa goolkii ugu dambeeyay amaba goolkii quusinta ka dhaliyay wadanka Ingiriiska haddaba group A waxaa hogaaminaya wadanka Russia oo 4 dhibcood ku hogaaminaya inkastoo ay ciyaari doonaan maanta wadanka Czech Republic ayaa 3 dhibcood leh Poland ayaa hal Greega ayaa hal Poland 2 ay leedahay Greeguna hal ayuu leeyahay sidoo kale group B waxaa wada hogaaminaya wadanka Germany oo 6 dhibcood ku hogaaminaya وهاجاك داود يا الولي واحد إنجلا سعتان وصوماليين TV أبنا كنالين مجلة غوتنبرغ كوحدة مانشستر يونايتد يا شهادة كيجن سعياريها كقد كده حوجا عيارة كوحدة الريال إسبانيا برشلونة تيجا الكارتين كلا إرادو حدي جانا يا بوس جوكتا كهيسنين كوحدة هاتن أو عيارة برشلونة وحنا بوس كيسكو استلاعبين تقد كده شافي عياريها كأمبا كابتن كي هورتي كوحدة أرسنال سيسكا فابريغاس هاتنا وما موقت الرجاء إنه كهلي دون بوس جوكتا كوحدة وهاتنا عيارة برشلونة أتا يا سبب dalabada faraha badan ee uga imaanaya kooxaha ka dhisan qaaradda Yurub ee isku hardinaya helitaanka ciyaaryahankan kooxda Manchester United ayaa shaacisay inay doonayso ciyaaryahankan sidoo kale waxa ayadana si baan u baadi goobaysa kooxda AC Milan oo ku raadinaysa ayaa ku daba joogtay ciyaaryahankan lagu qiyaasay 21 milyan ee pound dhinaca kale kooxda AC Milan ayaa ku gacan saartay abid lacagtii ugu badneed ee lagu iibsada daafac taa oo lagu qiyaasay amaba lagu sheegay 37 milyan oo uga timid kooxda Paris Saint-Germain ee wadanka Faransiiska tan ayaa dabarjab ku noqonaysa kooxo badan oo ku raad jooga ciyaaryahanka qadka daafaca uga ciyaara kooxda AC Milan Silva tan ayaa dabarjab ku noqonaysa kooxaha ay kamid tahay Manchester City oo ku baadi goobaysa lacag fara badan kuna soo qubtay malaayiin dollar suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ciyaaryahanka la yiraahdo Rubinho ayaa lagu wada amaba laga yaabaa inuu ka tago garoonka San Siro ee ku ciyaarta kooxda AC Milan 28 jirkan ayaa la hadalaya inuu ka hadaafi doono garoonka San Siro ee ku ciyaarta kooxda AC Milan ka gadaal markii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu gaabis noqday ciyaaryahanku hawshii loo igmadan oo ka soo bixi ayaa asagoo shabaqa la hareelay 6 gool oo qura xilli ciyaareedkii tagay waxaana si aad loola xiriirinayaa kooxda reer Spain ee Malaga wakiilkiisa ayaa xaqiijiyay in kooxda Malaga ay doonayso ciyaaryahankan aynana danaynayso inkastoo wakiilku uu qabo inaysan ka bixi karin kooxda Malaga laacib heerkan oo kale kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaa isku garbinaya la soo saxiixashada ciyaaryahan Alexander Kolarov ka oo ciyaara kooxda Manchester City ciyaaryahankan kooxda Juventus ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahankan inay kula soo wareegto qaab amaah laakiin kooxda ay ka wada dhisan yihiin wadanka Talyaaniga Inter Milan ayaa danaynaysa inay la soo saxiixato sidoo kale kooxda Manchester City ayaa ku dareynaysa inay ka hesho lacagtii hore ugu soo iibsatay ciyaaryahankan oo lagu sheegay 18 milyan oo pound 2 sano ka hor
daawadayaal waxaa intaa inooga eeg barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ka oo haddii alla idmo toddobaadkiiba mar kala socon doontaan Somaliweyn TV oo aad ka daawataan Obna Channel ee magaalada Youtube adinkoo toos inooga socon kara barta internetka iyo sidoo kale YouTube-ka oo dib uga daalacan doonta barnaamijyadeena oo rogaal celisa tan iyo intaanu dib dambe ugu kulmi doona barnaamij caynkan oo kale taa waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadiin iyo nooli kulanti waxay doonto naftaydu midkii aanay badidin duhuriya habeena aan ka daalin dantayda damaceeda qanura allownabada diriyahan Kay naftaydo aqooyda intay hakudaye dabaylaha xagaaga midkii aan dugsanayo dayrkayga ahayo kii daryeelka wacnayo daayinkay ku isiyo damaceeda qanura allownabada diriyahan dirimaadkay naftaydo aqooyda intay hakudaye dalqabasho daacadkiyo kii dulqaad ka badnaayo والكين ducadiisa daran dooru umashe damaceeda qanura allownabada diriyahan dirimaadkay naftaydo aqooyda intay hakudaye dibna hayga ku taalo midkii damqanaye dayrabkii halahena dabigaba buuxsho damaceeda qanura allownabada diriyahan dirimaadkay naftaydo aqooyda intay hakudaye Southern, halbowla haadiga kii habayo Southern, halbowla haadiga kii habayo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaantiin waan idin salaameynaa. Waxaan idinku salaameynaa salaamta islaamka midda ugu qaalisan.
waana idinkaga mahad celinaynaa kulankan quruxda badan ee aan iskugu nimid galabta xaafadan Gamlestad ujeedada kulanku waxa uu yahay caleemasaar lagu taageerayo Marwe Caasho Cumar Geestiir inay ka mid noqoto boqolkiiba 30 xildhibaanada loo ogol yahay dowladda cusub ee la dhisi doono ee Soomaaliya kulankeena macnihiisa iskugu imaanay waa sidaas waxaan marka hore rabnaa kulankeena intaan guda galin inaan ku furno aayadaha Quraanka Kariimka oo inoo akhrin doono Maxamuud Axmed Qaliinle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم هذه يوم هتسنيه قليل لي مركان waxaan rabaa inaan u yeero cali yaragaani oo soo jeedin doona ama warbixin kooban ka bixin doona ujeedada kulanka ee galabta aan isugu nimid halkaan cali yaragaani soo dhawaw bismillaah la maad iskale waxaan kaloo mahad gaar u soo jeedinayaa dhammaan dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan nagana aqbalay codsigeena inaan nagala soo qayb gasho xafladan waxaan kaloo mahad gaar u jeedinayaa dhammaan guddigii soo qaban qaabiyay xafladan aad baa mahadsantihiin dad badan kulli waxay isweydiinayaan xafladan maxaa lagu talagalay maanta Caasho yaa ayo weyn oo qof maxay ah xafladan sida loo sheegaba waxaa lagu talagalay caleemasaarka ama waxa la yiraahdaa nominationka Caasho Cumar Geestiir inay ka mid noqoto ama ay u matasho wadaniyiinta Soomaaliyeed ee jooga wadamadan reer Scandinavia, Sweden, gaar ahaan magaalada Göteborg. Caasho waa reer Sweden waa dadka ka midka wax bartay wadankan ee akademiga ka ee jaamacadaha wadankan uga baxay waxay ka shaqeeyay wadankan wax badan waxay baratay cilmi nafsiga macallimada way ahayd inta ka bacdi Caasho waxay go'aansatay inay waxay baratay iyo cilmigeedaba ay wax ugu tarto ama wax uga qabato wadankeeni Soomaaliya waqti ugu xumeed waqti ugu dambeysay waa la socotaan ku soo dhaawacantay ilaahay waa ka nabad baxshay alxamdulillah maanta way nala joogtaa maxay ka qaban kartaa Caasho kulley iyada wax badan looga sheegi doonta nololeedkeeda iyo awoodeeda siyaasadeed iyo waxa maxaa la dhahay ay ku biiri karto dhibaatada Soomaaliya taagan Caasho waa gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliya marka qof walba asaga safiran kara awoodda ama sakartida u yeelan karto inay ka qayb qaadato siyaasadda Soomaaliya waxa badan kuma dheeraan doono waxaan leeyahay waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba in Caasho ay noo tahay musharaxadda dadka Soomaaliyeed aan sharaxnay inay noo noqoto xildhibaanad noo matasha siyaasadda Soomaaliya waxaa leeyahay Caasho soo dhawow mar labaad waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah cali yaragaani aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay markaan waxaan rabaa inaan microfonka siiyo Shamsa Daahir oo ayadana ku hadli doonta doorka dumarka iyo rayid boori codka rayid boori iyo sida ay u arkaan caleemasaarka Shamso dadka ku dhaqan Soomaalida ee magaalada Göteborg Shamso soo dhawaw
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما سنتين رنتي سولوينتي نقيمها بدن يقصد قيبالك قبلنا قالقة أو رنتي أنا وهذا يا مجا يوتيوبوري سدو وراكي بير إسكندريانك هذا أنا عدك يوتيوبوري وهلك أنا سقول من إن أنا ولاشين وقلنتا أو خالقة أو وياك إن كنت أجرنا أو عبدير ugu jeedino dawladda iyo ododhaqameedyada loo xilsaaray in ay soo xulaan baarlamentarianka imaan doona hadduu ilaahay idmo waxaan cod dheer ku gaarsiinaynaa haddaanu nahay jaaliyadda youtubori iyo iskandinaviyankaba in aan caasho annaga ay noo sharaxan tahay markaan isla aragnay markaan ka fikirnay markaan qaybaynay waqtiga adiga kusoo shaqaysay aqoonta ay leedahay waayo aragnimada waxa uu wadanku ka macaashi karo waxa uu dadku ka macaashi karo caasho waxaan isla garanay in ay caasho u qalanto in ay nooga mid noqoto Scandinavianka ama magaaladan Göteborg haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed mid labaad doorka ay dumarka Soomaaliyeed ay ku lahaan doonaan baarlamaanka cusub aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan maleynaynaa oo aan rajo weyn ka qabnaa in ay sidii loo qorsheeyay ay u dhacdo oo si cadaalada ay gabdhaha qaybtooda ka helaan marka boqolkiiba 90 ayaan ku rajo weynahay in codsigeenaasi uu gaaro qolada u xil saaran runtii soo doorashada iyo soo xulidda baarlamaanka inay codsigana tixgeliyaan inay gabadheenu ay ka mid noqoto in ay dumarku door weyn ku yeeshaan in aan sida aan u malaynayno insha allah inay wuxuu dhacaan baanu rajaynaynaa marka walaasheen waxaan leenahay ilaahay kula qaado xilka aan maaragtay aan ku saaranay runtii waa hawl culus waxaan rajaynaynaa inaad qof ka soo bixi karto waa aad tahay annaguna waxaan kuu ballan qaadaynaa hadduu ilaahay intii awoodeynaa in aan garabkaaga aan taagnaano waxaan nahay awood kaa dambeysa insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku garab taagnaan doono xaaladada inaan la socon doono sidaan kuu dooranay inaan ta ku doorna ka harayna ma ahan macnaheedu laakiin insha allah mar walba ku garab taaganahay walaasheena insha allah aad baana kugu guuriyeynaynaa qaalinimada iyo aqoontaada iyo qaaliga iyo qiimaha aad leedahay aad ku soo jiidatay nagu soo jiidatay oo kugu soo garanay waa kuwa hambaliyeynaynaa mar labaad ilaahay xilkaadana kula qaado soo dhawow macane aad ay u mahadsan tahay khudbadii qiimaha lahayd ee halkaan inooga soo jeedisay welina waxaan ku guda jirnaa xafladeennii quruxda badneed aan ugu talagalnay caleemasaarka marwe shamse cumar geesdiir caasho cumar geesdiir sorry marka waxaan rabaa inaan u yeero mid ka mid ah odayaasha ugu magacaweyn magaaladan Gothenburg ee caasimadda labaad waddanka Sweden waa adeer cusuble waxaan ku hadli doonaa erayga odayaasha magaalada Göteborg soo dhawow adeer cusuble السلام عليكم. aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin soo dhaweyseen darmofanka marka u horeysa waxaan leeyahay caasho ayaa waxaan leeyahay caasho cumar geesdiir waxaan leeyahay ayaan dhawaaday markii ay yimaadeen anigoo qofka koowaad oo maaragtay ka hortegi doona isu haystaa waxaa igu dhacay oday yurub joogo hadda maaragtay dalkiisina saas ku yaallo jiradiisu waa badantay jirra igu dhacday jiradii markay igu dhacdana dadaan soo faray oo hadda maaragtay meesha joogaan waxaan soo faray caasho iyo waqtigeedu inay raalliga noqdaan odayga cidda u weynaayo jirada inaan ahna u sheegaan sacdiya ayaa maaragtay aan soo faray marka caasho raalliga ahaato jiradaas ayaan uga maqnay maahan caasho wejigeedu uguma cusba meel walbaan ka aragnay waxa ay tahana waan naqaanaa oo maaragtay aad baan u naqaanaa dadka aan xilka weyn saarnay ka mid tahay marka xilkana ilaahay u siyaadiyo qayb badan allah siiyo
waxaan u mahadcelinayaa dadkii martidaas lagu shartiray oo lagu dhibtiray oo maaragtay soo dhaweeyey oo ka hortegay oo Soomaaliyeed inkastoo aan ogahay magaalada Youtubori inay xoogaa lagu jiidkeedu badan yahay haddana caasho iyo waftigeeda waa la soo dhaweeyey marka qayb badan ayaan u rajaynayaa dadku soo dhaweeyey ilaa haddana u taagan inay maaragtay sharafteeda ilaaliyaan waa ammaanaya anigoo la yidhaahdo odaga cidda u weyn waaye waa ii gambatay maxaa la yidhaha baasha la yidhaha dhalintu magaalada Youtubori oo dhan anaa u weyn marka alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan leeyahay gabadhayda caasho Cumar Geesdiir haddii odayaashu nacanaantaan aabbayaashu nacanaantaan oo ay maanta nacanaantaan hooyo aan joogin ilaa hooyo timaado ooyinta ma jooji jirin waa ooyi jirnay ilaa hooyo timaado hooyo markay timaado inta saas noo qabatay yaa kaa ooyay yaa saan ku yeelay tiri haddana inta xasilnaan dhihi jirna odagaa saas xoogaa inigu fiish marka caasho waxaan ka rabnaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo diinta Soomaaliyeed waa ooyeysaa ilaa caasho wax ka qabatana xilku waa dhiman yahay weli xilka ay qabanayso oo aan la doonayna inay qabato ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay annagana in ilaahay naga aqbalo waa la jecelnahay waa gabadheena waa aqoonyahan waa dad maaragtay waa gabar maaragtay Yurub ku soo kortay oo dalka taqaano oo mar waxa uu yahay taqaano oo maaragtay aan hadda loo sheegaynin oo hadda dalka aan joogno iyo dalalkan maaragtay soo aragtay waxay soo aragtay Soomaali way la doonaysaa way la jeceshaa waana hooyo ummadda Soomaalida ooyeysa dadka ugu ooyeyso maaragtay dajida oo ay ku jirtaan marka sahal Allah uga dhigo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay adeer cusub leh markan waxaan rabaa inaan u yeero xasan qoslaaye oo kamid ah dhalinta ugu firfircoon magaalada Youtubori xasan wuxuu ka hadli doonaa muhiimadda midnimada iyo isku xirnaanshaha gaar ahaan Soomaalida Youtubori xasan soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم وما صلتهي أنفع هذه وما تسنتهي مركة هراء وحن كسلام على دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن هذه وفرح سنة هنا كسوق يبقى مناسبة دان لو تغيير جودة ولا شيء عاشو عمر جيستير عاشو عمر جيستير وجبر أصوات النقال كل جينا وجبر ماركتي كرتب بدن أقوي هنا Soomaaliya oo soo baratay wax badan oo wadankan joogtay Sweden oo waxbarashadii soo korsatay waa gabar aftahana waxay soo qabatay iyo waxay taan oo wada naqaano inaan buuburin ama aan ku soo celin ugu baahnin waa gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Soomaaliya haddana xaggaas soo shaqayso ka timid saan socotiin waqtigii u dambeeyay qarxii ka dhacay تياتر ناشونال تياتر Soomaaliya ay ka qayb ay ku jirtay ilaahay waa ka soo badbaadiyay waa alxamdulillah waxa la yiri waa maayada reer xamarkan jeclahay waxa la yiri shini oo malabkeeda la shubanayo shib bandhaysa halay anaga qurba joog ka daanahay wadankeena dhibaato badan ka jirta wadankii niman al-shabaab dhahaa soo galay oo diin sheeganaya dadka dhamaynaya saan maqalnay qashina badda Soomaaliya lagu shubaa burcad badeed waa laga sheegaa dadkii baahi gaajo iyo amaan darro iyo wax walba u leeyanayaan anaga daaqo joognaha marka waa inaan ka qayb qaadanaa arrintaas inaan qaybteena ka geysano waaye haasha marka كلية قفكي هو هرينا معنا عملنا قفوا قدامنا معهن لكن waxay kamid tahay dadka hadaan xubjoogta aan iska soo soconay oo aragno inay tahay qof hormood noo noqon kara oo hoggaan noo noqon kara oo wadankii dib u dhiskiisii soo celintii amaankiisii iyo horumarintiisii ka qayb qaadan karta waxyaabaha dhibaatada Soomaaliya ka jirta waxaa kamid ah midnimada xumada la'aanta Soomaaliya ka jirta gobolada Soomaaliya inay kala go'an yihiin dadkii inay qabiil iyo tafraar iyo waxyaabo kala duwan u kala qaybsan yihiin waxaan u baahanahay dad hoggaan ah oo maskaxdooda shaqeeyso maskaxdooda caafimaad qabto oo markii midnimada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed
ay khatar ku jirto dad isu tanasulaan u baahnaa haddii hoggaanka soomaaliyeed dad noocaas ay yihiin oo qarannimada ka fikiraya ontooda ama mid gobol ama mid shaksi ahaaneed ama mid qabiil aan ka hormarinayn xaaladdu meeshay hadda joogto ma gaari lahayn marka waxaan u baahanaa dad noocaas oo kaleeta oo caasho oo kaleeta ah haddii aan caasho usoo noqdo saan hore u sheegay caasho waa qof aqoon-yahana codkar ah oo maaragtay gaarsii karta codkeeda dadka waa qof dhaqan iyo diin leh saa u jeediin inkastoo qurbaa wax badan ay joogtay soomaaliya gudaheeda dad badan waxay ka aaminsan yihiin dad qurbaha wax badan joogay inuu soo dhaqan rogmay ama waxaas oo kaleeto laakiin wax jira maaha arrintaas wax oo maaragtay ugu dambaystii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa dadweynaha kasoo qayb galay walaashay caashana aad iyo aad aan u taageersanahay kulligeedna sababtaa meeshaan isugu nimidna arrintaas waaye waxaan caasho kula dardaarmayaa waddanka hadday ku noqoto qof aqoon-yahana maadaama ay tahay inay qaybteeda ka qaadato iyadoo anaga qurba joogta reer Sweden qaasaan magaalada Göteborg hadda Göteborg jooga iyadoo la metelaysa marka waxaa la yidhi dadka laba nooc ay u kala baxaan dadna markii qof kala hadlaysaa la yidhi waa dhegaystaan oo wuxuu sheegaya isku dayaan inay fahmaan oo qof waxaas sheegaya galaan qofna waxaa la yidhi wuu sugaa wuxuu fikiraa kaliya inta qofkaas hadal ka dhameeyaa isagoo wuxuu sii dhihi lahay ama haddii kaleeto inuu qofkaas meeshata qof kale soo gasho hadda waa u jeedaa inaa hadalkeyga dhegaysanaysiin saa u dareehaysiin ayay ii sheegaysaa maaragtay gabartaas walaashay iyo waddankeena dhibaatada ka jirta aad iyo aad umahadsantiin inaad dhegaysateen markaan waxaan rabaa inaan u yeero cabdullaahi xayle cawaale oo asna sidoo kale ku hadli doona magaca isku xirka soomaalida Göteborg cabdullaahi xayle cawaale بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحفل ده عشان كده سوروا ولا وحنا لنا سوروا وانت وعنا غير Göteborg وصلية غير سودان أيضا مرة دي سوروا ويا غير Göteborg هاي كده كانت عيد غير سودان سوروا ويا مرة والله هاي وماسين ولا لها قبل حفلتان هو على مساري ولا شيء عشان كثير ودون يسأل كمان نقطة اللي معنا صومالية مستقبل صوصة حكوا السلام عليكم بعض الصحافة أيوة هذا المسلم يسول ويا ذلك فرع بدن والموجين مرور باي مشهد الأهل كايا وأنا قوة عدك مرور بجاسين إياه dadka dawladda jooga iyo kuwa gudaha jooga inta waa isku xiraya ummadda isku xiraya walaalaha waxaan leeyahay saxaafaddu ha ka daalin dadaalkeeda waxaa la yidhi qisa yaroo jirta waxaa la yidhi waagii adduunyada la abuuray afkow aadan iyo iyo abutaxaawil way heshiiyaan waxay ku heshiiyeen inay afkow aadan oo qabto shaqada adag oo qabto shaqooyinka adag oo qabto ama taxawul waxa la shaqooyinka fudud oo guriga ugu horeeyay carruurtayda aa loo dhiibay mar dambe ay soo jeesteen oo waxay dhaheen maya annaga waa nayasaydii waxa way dambi aad gasheen waa wuxuu naxariistay kama ahna waa yasad wey marka ilaa iyo hada halkii waa wuu socdaa wuu soo dhamaa marka waxaan leenahay runtii raggu gabdhaha aad u jecel yahay waa walaashood waa hooyadood waa gabadhoodii waa ehelkoodii aad iyo aad marnaba xumaan uma uguuro marka mar walba ku talagala in raggu yihiin raggiinii walaalihii waalidkii wixii oo dhan yihiin mar walbana in garab taagan yihiin sad wax u qaban lahaydeen gabadha aqoon-yahanada hoosay jirtaba waa loo baahan yahay aqoonteedii iyo wax walba dhaba isku darsata waxaa weeye ayada waa lamarwan in la taageero la garab istaago meel walba yani sheeg say wax u qabanayaan la garab istaago oo aad iyo aad loo soo dhaweeyo oo ii sheegeen lagu taageero aan marna wax niyad jabi kara aan lagu samaynin marka waxaan leenahay walaashay soo dhawow kusoo dhawow reer Göteborg oo walaalaha ah oo ku doonaya inay ku taageeraan kusoo dhawow aan leenahay maraba waxaan rabaa wax yar inaan ku darsado oo ah maanta walaasheen
halkaa soo aan taageerno walaashan kale yaana taageerin ee aan taageerno waddankeennii sidaan wuxuu qaban lahay sidaan loo hagaaji lahayn sidaan annagu gacmaha isu qabsan lahayn aan ku darno taasna aan ku darno kaliya qof kaliya ama labo ama maaragtay caasho kale keliya wax ma qaban karto waxa wada qaban kara dhammaanteen oo isu tagay isu calool furay annaga wakiil naga tahay haddii alla idmo marka intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad mahadsantihiin walaalaha aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdulaahi xayla cawaale markan waxaan rabaa inaan u yeero marwo caasho cumar gesdiin oo aan galabta halkan iskugu nimid caleemisaarka inay ka mid noqoto 30% gabdhaha Soomaaliyeed ee loo ogol yahay dawladda soo socota inay ka qayb qaataan marwo caasho waxa ay ka hadli doontaa xaaladda guud oo dalku marayo maadaama ay mar dhow ka timid magaalada Muqdisho iyo doorka haweenka ay ka qaadan karaan in dib loo helo xasilooni buuxda oo Soomaaliya ka dhalata caasho soo dhawaad بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa reer Youtube rag iyo dumar waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad mahad aad iyo aad u weyn ayaan u celihaa sida sharafta leh ay mar koowaad mar labaad mar saddexaad reer Youtube si gaar ah isoo dhaweeyeen dadka lagama wada helo taas meel ay ugu qoran tahay aad ayaa u mahadsantihiin taariikh nololeedkayga haddaan wax yar idinkaaga sheego aniga waxaan ku barbaaray kuna dhashay magaalada Muqdisho dugsi hoose dhexe sare iyo xanaanad waxaan ka dhigtay Muqdisho waxbarashadayda dugsiga sare waxaan ku bartay luqadda carabiga أحكي كمان اللغة العربية لكن نسيت وقالوا لي سوفتو مرحلة كالجدسان لغة كالجدسان عاي سومري دكسي جرى السرين مكان كبحي وحان أحادث كغير قالين إن حلني وتببر عيدا نواس وقاته شقد قرني معلن عنها وحان قولي جري أفكا سومالي يسوغانت ولو يدي بيس سوغانت qof xamarku dhalata dugsi sare carabi kaga baxday laakiin waa taageeray mar walba inaan waajibaadka la saaray aan ka baxo dugsiga sare oo marka xalana aan ka baxay kadib waxaan tagay India oo aan laba sano ku barahay luqadda Englishka markaasna jaamacad ayaan ka bilaabay oo waxaan bartay cilmi nafsiga political science iyo social science aan ka qaatay markaan dhameeyay waan guursaday Indian ku guursaday wiilaan ku dhalay anoo wiil iyo shahaado jaamacadeed wata ayaan Soomaaliya ku lahayd Muqdisho markaan tagay xoogaa problemada ay iska soo bilaabay rabi Soomaaliya intaysan dhicina waxaan soo galay Sweden 1989 ayaan Sweden soo galay waxaa wiil igu dhashay Småland Kalmar kadibna waxaan soo guuray Lund intaasna waxaan ahaa macallin markaan Lund soo degay haddana wiil kale aan ku dhalay meesha jaamacadna waan ka dhigahay oo human rights especially xuquuqda haweenka gaar ahaan islaamkan xoog u xiiseeyahay inaan barto waxaan kaloo qaatay on completing coursing ku sameeyay psychology aan dhigahay kadib waxaan noqday macallimad si toos ah haddana waxaan ka shaqeeyay isbitaalka oo yani waxaan ahaa health communicator dadka qaxootiga yimaado kale shuruucda Sweden ka degsan iyaan macnaha ofisiraay waxa ay xaq u leeyihiin xaq lagu leeyahay marka ay noqoto especially caafimaadka dhinaciisa
cudurrada qaarkood oo la iska qaado hadday fidiyaan inay xabsi ku galayaan cudurrada qaarkood oo halista ah hadday qabaan sida HIV AIDS-ka in la caawihaayo aysan u baahnayn in lagu celihaynin wadankooda inaan gudniinka la ogolayn inaan qaadka la ogolayn sababihii loo mamnuucay researchyo badanna waan ka sameeyey labadaas dhinacba oo buugaan ka qoray hadday naqato qaadka iyo hadday naqato gudniinkaba aragtida ay ka qabaan yani soomaalida markay soo galaan sida ay fikirkooda isu bedelo gudniinka gabdhaha kadib markaa muddo joogay dadka mar walba ku fikira ahaa soomaali markay isbedesha aad tagtid waayo markaa inta joogna cariiri badanaa dadka qaarkood qabaan adoo wax bartay xataa waxaa laga yaabaa qiimeynta shahaadadaada iyo inay iska liidato oo shaqooyinka iska adkaadaan inkasta Sweden markaan soo galnay mar walba shaqooyinka sii xunahayeen oo marka hore cusbeen oo kale aysan ahaynin halganka waxaan ka bilaabay Sweden dhexdeeda mar walba waxaan difaaci jiray qadiyadda Soomaalida haddii qalad laga sheego runtii qaladaad badan waan leenahay waxaan isku dayaynaa dhexdeena organisation ahaan inaan isbarno waxaa loo baahan yahay inaan bedelo haddii qalad jiro kale waxaa laga yaabaa hooyo qaladeena wax looga qaado waxaa laga yaabaa waxaa dhacay hadda ka hor gudniinka ninka ugu horeeyo wax soo guday in la yiri ninoo ahaa oo gabadhiisoo la gudaayo ayuu lugaha hayay 4 sano loogu xukumaa saas dadka u dooran kamid ahaa dhaqan inaan u lahayn nin inuu gabadhiisoo la gudaayo fiiriyo dadka waxay u baahan yihiin mararka qaarkood qaladka ay fahamsan yihiin in loo sheego hadda adigu sheegin wax walba ugu marsiihaya Soomaaliya waa ansixil qaamay waxaan ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed inta aan bedeli kara aniga inaan bedelo qofka bini'aadamka hadduu qof walba wax yar bedesho wax weyn aa bedelmaayo waxaan tagay 2009 waxaan la shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid la taliyihiisa dhinaca genderka iyo difaaca carruurtan aan ahaa waxaan joogay Muqdisho waqtiga aad ugu xumeed oo 6 degmo kaliya ay macnaha dawladda maamuleysay 6daasna markaa maraysa xataa madaafiic kugu soo dhici karto hooyii kugu soo dhacayo wiifta kugu soo dhacaysa mararka hore waa ooyi jiray waa baqi jiray aad aan baqi jiray markii jugta dhacda habeenkii si fiican u seexan jiray waxaan is dhihi jiray masaga tagtaa haddana markaan arko dadka aan raashin haysan oo daawo haysanin oo dhibka inta ku dhaco haddana ku dhex nool oo qof u hadasha lahayn oo madaxtooyada aan soo geli karin oo dadka mas'uulka ka ahaa aan u gudbi karin fariintooda aan arkay waxaan is iri fursadaas haysataa at least waa ku dhex jirtaa u gudbi dadka walaalkay Cabdullaahi Xayle Hadaayo wuxuu yiri aadan iyo xaawo hawsha ragga macnaha waxay ahayd adag oo banaanka inay soo qabtaan tan fudud oo gudaha si ku ogaato tan guriga inay fudud tahay weliga ama qaban hawsha guriga ugu adag madaxweynaha guriga madaxweyne waxaa ka ninka prime ministerka hawsha ugu badan uu qabtaa mugtay wasiiradaha dhan waxaa madax u waxaa ra'iisul wasaaraha haweenka guriga ra'iisul wasaarkeena wasaaradda caafimaadka iyagaa ka shaqeeya because caafimaadka guriga iyagoo ay waxa haya cunuga jiran hadduu awood jirado haddii ayay jirto iyadoo ay waxay wasaaradda waxbarashada iyadaa ka hooyada because barbaarinta marmara waxaa la yidhaahdaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta arintaladeyda hadeeta waxaan horumarin lahaa wasaaradda barbaarinta iyo waxbarashada aan leedahay because barbaarinta ugu horeyso hooyadii wanaagsan oo ilmaha Soomaali fiican barto oo si quruxsan oo edeb u soo koriso aanan caayin aanan garaacin aanan yani waxay dhalaysaa ilmo oo waxaa ka soo baxaya dad jecel raxmad badan dhageysahayo carruurta mararka qaarkood anaga waxaan ka dhignaa inay waxba fahmayeen carruurta aad wax u fahmaya haddii lala sheekaysto marka hooyooyinka waxay hayaan hawsha u adagay hayaan runtii guriga maaha waayo waxaa u imaanaysaa sariir nadiif ah guri uunsi leh raashin kuralo aa u timaadaa mogta haddaa soo daashi marka hadda dhibaatadan haysato waxay tahay hawsha adkeedaana lagu qasba inaan banaanka doono
waxaan doorana ma ahanay waxaana leenahay ragga markaan la hadlayna please qabsada heshiin guriga inaan fadhiistaan rabaani ma aha fadhi in hawl fudud ii taal ma aha laakiin waxaan rabaa caruurta la maskaxda laga rogin inaan laga rogin oo ani inaan u sheego caruurtaas inaan jeclahay inay qiimo badan yihiin inay diinta saxa bartaan waxa bari kara aabaha iyo hooyada ah marka inaan fadhiisana rabnaa say u fadhiisanaa waa guriga siyaasa annagana haweenka waxaana laga rabaa siishanadeena inaan raadsano si aad u buuxisid midda kalena 30 kuma koobna 30 iyo wixii ka badanaa leh marka haddii lasoo buuxiyey ka badnaantana waa la heli doonaa especially dumarka oo maaragtaa waaya aragga ah halgamaayo dadku waa la kala yaqaanaa in iyagana ay u fududeeyaan annagana codsigaas inaan dirsano waayo raggaana weligeed inta wax weydiinano ma aysan diidin sometimes dadka qaarkood waxay leeyihiin adinka raggiina idin diiday xilka aa ii doorateen ama aad tiraahayn inaad qabataan rabtiin runtii xil wax yar ma aha wax aan wada qaban kara ma aha laakiin waxaan aaminsanahay inaan isku dayay laftirkeyga iyadoo la ii dooranin inaan wax badan wax ka bedeli karaa aaminsanahay because aqoonta waxa ii dheer khibrad u ah oon ku noolaaday wadamo ka kala gedisan waxyaabaha ka dhacaya aan arkay waxyaabo badan aan akhriyay iyo dadkeena dhaqanka ah anaga wadana suu yahay sometimes dadka qaarkood waxay dhahaan Swedish camal aan aqtay yani sida ugu doodaysi ragga iyo dumarka ma aha guriga waxaan kusoo koray aabahay uu mar walba ii dhihi jiray 9 bilood aan ku dhalatay sida wiilkayga oo wiilasha ay wax u bartaan gabdhaha waa inay wax bartaan baaskiil walaalkay hadduu wada wadi jiray football aan ciyaari jiray ilmaha walaalahay ila dhashay gabar iyo wiil qof aan dabaasho aqooni ma laha waayo aabahay wuxuu aaminsanaa inay sunno tahay inay dabaashaan inuu maskaxda iga dhiso adaabtaada markaan 16 sano soo gaaray wuxuu dhihi jiray gabar qurxoon taa soo kortay rag badan oo kula hadli doono laakiin waxaa la rabaa inaan miisaan leedahay wixii qaldan aa og tahay wiilka ku rabo gurigaada ku yimaado banaanka hal raaci gurihiisa hal raaci aadaan idinkaaga mahad celiyahaya taageeridda waxaan jeclahay in xoog loo taageero 30% gabdhaha ay ku leeyihiin baarlamaanka ama meelaha kale sometimes baarlamaanka la niraaha laakiin ana waxaan aaminsanahay meel walba inaan ku leenahay haday wasaarad noqoto dhanka ganacsiga hadduu noqdo meel walbaba in laga heli karo 30% taasna inaan taageeridaas xoog loo wado si ay wax isu bedelaan raggana aada ugu faraxsanahay meesha waxa fadhiya ragga u badan gabdhahaas dabcan waxaan aaminsanahay howlo badan in la haayo iskuulaadka ay xirmayaan haddana aad nafta usoo horteen oo yani ii timaadeen waa dadaalaya xilkaas aad jeceshihiin inaan qabto waxaan u maleeyahaa campaign ayaa hadda inoo bilowday meesha Göteborg waa Scandinavian Sweden waa ka hadalnay waxaan jeclahay campaignkaas inay la gashaan adinka laftirkiin oo hore ay wadaan Sweden oo dhan insha Allah ilaa iyo Scandinavian-ka aan gaarsiino inta kaloo loo baahan yahay inay soo baxdaan iyagana aan isla qabano si aan gacmaha isu qabsano dhibkeena waa adeer wuxuu i tusay sawiro badan meeshaas ku jiro dad aad caruur u badan oo aad u dhibaataysan lacag yar oo isku dalno dad buro ka soo baxay dad oo isbitaal ah ka buuxa meeshaasi lacag yar oo isku darno oo dirno ama aan dibadda u soo dirno qofkaas loo soo qaado kaliya wax matarayso waa ku dadaalaynaa inta laga gaaro in loo qabto laakiin boqolaal aan channelskaas oo yani website lagu soo qoro aan helinaa jiro runtii waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaalno inay isbitaal lacag la-aan helaan inaan ku dadaalno dadkeena aqoonta leh ee waxbartay ee caafimaadka bartay inay waddan ku laabtaan at least haddayna degayna xataa ay kasoo shaqeeyaan sanadkii bil wadamo badan aan kala joognaaye waddan walbaba uu bil isku aadiyo
uu kasoo shaqeeyo qadiyadaas xilkaas waxaa la rabaa dowlad ahaan in loo qabto waxyaabaha qaarkood dowlad ahaana loo baahan yahay in loo qabto waxyaabaha qaarkoodna shaqsiga dadkeena aada u dadaalaan qofaan lacag dirin oo reerkeeda dhibaataysan u dirin oo marka wax lasoo sheegay inta awiyaan dirin waan u yaryahay laakiin waxaan u baahannahay institutionadii naga burburay inaan dhisno iskuulaadkii lacag la-aan lagu helo isbitaalada muhiim inaan helno banki dhiig lagu shubo waayo ciidamadeena soomaaliya intaan soo dhex joogay lacagta ay u qaataan aada u yartahay nafaqa fiican ma helaan mararka qaarkood way kasoo daahaysaa dhaawac hadduu gaarana faamligii aad daba socdo oo dhiig u shubaayo waxaa loo baahan yahay dhiig lasoo baaro inuu meel u yaalo waa in u doodnaa inaan dhiig u helna ciidamada waa kaalma iyadaba lacag keliima ah waxyaabo badan oo waxaa loo baahan yahay inaan ka hadalkayga intaasaan kusoo koobayaa wax hadda noo bilowdana waayo aada ayaan u faraxsanahay aan idinkugu maxad celihayaa iridaas inaa furteen iridana keligay inaan gala ma ahay inaan ila wada gashaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وسلامتي دمان مدني مروين دتك ماشي سوي مد وعهل كان مهجر وعلينا وراشين عاشو عمر جيستير oo ah xildhibaanad ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir gabdhaheeda qaranka Soomaaliyeed oo u xiijiiday xildhibaanimo shaqada weyneeda wacneeday soo qabatay caasha abay waxaan ku leenahay soo dhawow magaalada Yitaboori waa magaaladaadii caasha hadeertaan ma aha qof halkaan ku baratay caasha waxay ahayd reer iskoona aniguna waxaan ka imid iskoona oo 9 sano deganaa anigana waxaan isku magaalo ka yimid ahayn ayada waxay deganeed magaalada Maalmo waxayna waxbarashada takhasus ku dhameeysay magaalada Lund aniguna waxaan deganaa magaalada Islo 9 sano marka caasha waxa waa qof qaran qof qabiil ma aha waa qof aad iyo aad qiimo badan u leh waxbarashadeeda iyo akhlaaqdeeda iyo diinta ay leedahay iyo aqoonta ay diinta u leedahay adigu ma ogid laakiin caasha ana aqaan qof aad iyo aad xagga diintana ugu dheeraysa waay حق أخلاق ذي حق السلام عليكم. عليكم السلام. وهذا ما قال إقرأ لهذا. لكن هذه المقابلة يقدر الله والله. وعودت البيو وريت له. مرات تقول ما شاء الله أنو سودوات. أنت عن تقول بشر وكما تقولي أنت كذا شيء أو حفلة نودي شيء أو ضبط أسلوب عي وعلنا أدري حسنات الله تسلم آمين هذا الأقوال ما جبته لكن وهو متساعد شيء وحنا ربنا من المدرسة وما لنا وحيا كتاتا ربنا وحيا نقول أمان الله وحيا قبلها الفراغ وشيء هذا أمتنا marka waxaan rabaa sida isugu soo dhawaalahay oo fariin baraad oo noqolahay oo dal iyo dibad ka hadlahay ama dalkii wax soo saarahay habeen dawad waxaan ka fiirsaday TV ilmo yar oo Ingiriiska wax ka dhigtaan jaamacado oo midna 3 sano jiraali markii bay keenayeen gabaruna 1 sano jiraatay iyo wax la mid ah waa is aruursadeen waxay ku fikireen ayagoo dalka weligood arkay inay sameeyaan midnimo ay dalka wax ugu qabtaan waa la weydiiyay waxa la yidhi maxaa idinku dhaliyay halka mid wuxuu leeyahay markaan ka guurnay dadka Soomaaliyeedna wuu yaraay markaan akuur Soomaali badan oo meel isugu timid inaan wax qaban karnaan ku fikirayo haddii ilmahaas kan ugu badan qaran baan nahay ilaahow qadiro هاي بأداك نسير دمرك هاي بأداك نسير دمرك عاشر إرباك أنت تجيني أتاي إرباك أنت تجيني أتاي أتاي عاشوي القرن بعد قادي اللي بان بعد هاي عاشوي القرن بعد قادي دركنا
dushaadaan saaranahay dushaadaan saaranahay dushaadaan saaranahay dushaadaan saaranahay xildhibaan dheedheel maahan xildhibaan dheedheel maahan caashooy xogtaadaan nahay caashooy xabiibaan nahay caashooy xogtaadaan nahay caashooy xabiibaan nahay kuwa suurtaysay baan nahay waa hagaag daawadayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa barnaamijka waxaa gacan weyn ka geystay dhanka farsamada iyo kaamirada xuseen cabdi caliso waxaa isku dubriday wariyaheena axmed kaafi anigoo anfac cumar caddo barnaamijka ayaan idinla socodsiinay inta aan dib dambe u kulmi doono waa bahda soomaali weyn iyo Göteborg Sweden oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo